magacaygu waa Maxamuud Sheekh Khaliif Dhoore Maxamuud Sheekh Khaliif Xuseen Dhooraan ku magac dheerahay Maxamuud Dhoore maanta waa runtaa waa maalin ummadda Soomaaliyeed ku weyn waxaan u hambalyeynay dadkii soo aasay ururkan oo 13 dhalinyarada ahaa ilaahay meel fiican ha mariyo sidoodaba dhalinyaro waxay ahaayeen aan qoon badan lahayn maal badan aan lahayn ninka ugu weyn oo 40 jir ahaa Cabdiqaadir Sheekh Khawdiin waxa sida la sheegay ku jiray 20 jir marka raggaas iyo intii kale ee u soo halgantay waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu jannada ilaahay ka waraabiyo waxaan ayaga kaliya ma ahay ummadda Soomaaliyeed iyo inta midnimada jecel taas waxa weeye waa qodobkii aan rabay inaan muxuu ahaa ugu hambaleeyo dadkii xornimada noo keenay waxaan kaloon rabaa inaan xaaladeena maanta aan ka hadlo xaaladeena maanta qof kasta waa ka dharagsan tahay runtii waa xaalad akiran gumeysiga sidiisa waxa la yiraahdaa qaybi oo xukun hadda wuxuu nala helay inuu qaybiyo ilaa 5 dawladood uu naga dhigay 5 dawladood waxa kamid ah iga raalahaw Somaliland Puntland muxuu ahaa Galmudug Hirshabeelle koonfur galbeed iyo Jubbada Hoose Jubbaland waa ku mahadsan tahay marka gumeysiga inaan arrinkiisi aan qaadano maanta wax noo haboon maaha ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa tusaale ahaan maamulka Somaliland wuxuu jiray 30 sano maantana waad arkaysaa inuu 3 maamul u si kala qaybsamayo oo qabiilkii lagu baabay ee qaybiyo xukunta dib loogu noqday Puntland waad arkaysaan ummadda Soomaaliyeed ee maanta aniga dhageysanaysa wax kale iska dhaafay waxa la kala celin la yahay meesha la yiraahdo Qardho muxuu ahay Boosaaso iyo Garowe gobolada dhexe macalsaf waa ka xumaay maanta in dadkii ay ku noqdaan in qabiil xataa la isu dilo iyadoo maamul dawladeed uu jiro Hirshabeelle ayadana waad arkaysaa waa kala taagan tahay oo ma aragtay waxaasna waa wuxuu gumeysiga ka shaqeynayo Beledweyne iyo Joor waa kala taagan hadii aan koonfur galbeed aan soo qaadano waxaan waa taariikh maanta aan ka hadlayo koonfur galbeed 3 gobol oo la isku daray waaye waxaadna arkaysaa maanta madaxweynaha inuu dhaafi la yahay magaalada Baydhabo waxaan kaloon ka soo tagay Hirshabeelle Joor oo dhaafi la yahay inta badan xamar uu joogaa muxuu ahaa Galmudug waxay dhaafi laadahay magaalada la yiraahdo Dhuusamareeb nimanka muxuu ahaa Puntland waxay dhaafi laayeen Garowe Hargeysana waxa dhaafi la maamulkaas hadii aan marka Jubbaland aan u leexano Jubbaland waad arkaysaa waa dhul qani oo aad u weyn madaxdiisana wili Kismaayo ee dhaafi laadahay meesha la yiraahdo Yoontoy ilaa ay sarta ma dhamaato inta u dhaxaysa yaa uu dhaafi laayahay madaxweynaha ayaga iyo gadan xiriir fiican kama dhaxeeyo oo dadkii la rabay inay istaakuleeyaan marka waxaad arkaysaa wadankii in gumeysigii aan lagu halgalnay maxaa xal ah Maxamuud ahaan waxaan rabaa inaan wixii xal ah aan ka hadlo waxaan kamid ahay odayaashii ku guuleystay in ummadda Soomaaliyeed dalka Sweden isu keenaan ka dhaadhiciyaan inay noqdaan hal ummad oo Soomaali yiraahdo tii waxaan ku gaarnaa maanta in xildhibaanada la yiraahdo waa Soomaali intaas xildhibaan aan leenahay degmooyin 5 gaarayo oo holwadaag iyo muxuu ahaa iyo meesha la yiraahdo hodan oo la isku daray mid nin Soomaaliya maamulo meel kale marka Soomaalida magac Soomaali annaga dadkaas marka Soomaalinimada uga dhow marka waxaan ku guuleysanay inaan ummadda Soomaaliyeed aan midayno meelna isku keenno waxaan marka diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano odayaasheenii alxamdulillah wali waa nool yihiin inaan ku taageerno dawladda maamul goboleedyada inay heshiyaan ay noqdaan ummad kaliya kala dambeyn leh oo ismaqasha hada tusaale aan hadda soo qaadano maamul goboleedyada waxaad arkaysaa inay madaxweynihii xildhibaanada ayaga ay doorteen inuu madaxweynihii ay soo saareen aysan la shaqeynaynin ra'iisul wasaaraha waxaan u aqaanaa nin ahludiin ah marka waxaan jeclaan lahaa walaalaheen inay la shaqeeyaan dawladooda sidii loo midoobo waxa kale oo aan u sheegayaa dadka muxuu ahay meelahaas jooga waxaan waa adduun birina waa aakhiro ma waxa idin wanaagsan inaad Soomaali mid noqotaan mas waxa idin wanaagsan inaad sidiina aad aakhiro ku aadaan marka waxa waay walaalayaal waxaan diyaar idin lanahay inaan waayo aragnimada aan ka kasbanay usukiinada ummadda Soomaaliyeed inaan idin la wadaagno marka waxaan jeclaan lahayn xataa inaan safar wadanka ku soo bixino anagoo tagayna maamul goboleed kasta iyo dawladda Soomaaliyeed magaalada Muqdisho